shir jaraa'id oo ay si wada jir ah ugu qabteen qaar ka mid ah golaha sare ee dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo maalmahanba ku sugnaa magaalada Muqdisho iyo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Khaatumo iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo iyo sidoo kale madaxweynihii hore maamulka Khaatumo ayaa halkaasi waxaa lagu akhriyay warmurtiyeed ay si wada jir ah u soo saareen kaasoo shir maalmahan uga socday magaalada Muqdisho ay uga tashadeen shir jaraa'id annagoo ah isimada beelweynta Khaatumo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo madaxweynihii hore ee maamulka Khaatumo xubno ka mid ah baarlamaanka iyo xukuumadda maamulka Khaatumo golaha guurtida iyo waxgarad kale oo bulshada ka mid ah waxaanu halkan ku cadeynaynaa inaanu si mug iyo baaxad leh uga soo horjeedno waxa lagu sheegay isafgaradka ee dhex maray maamulka Somaliland iyo koox u garwadeen ka yahay madaxweynaha Khaatumo isafgaradka oo xadgudub ku ah dastuurka Khaatumo iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed iyo rabitaanka shacbiga gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ahna mid ka soo horjeeda midnimada dalka Soomaaliyeed sida darteed waxaanu si cad ugu sheegaynaa dowladda Soomaaliyeed dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba in midnimada dalka Soomaaliyeed ay tahay lama taabtaan labo in kooxdaasi aanay ku matelin wada hadalladaasi shacabweynaha Khaatumo ugu dambeyntii waxaanu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay isgarab taagaan halganka ay ugu jiraan shacabweynaha Khaatumo ilaalinta midnimada Soomaaliyeed ayaanu annaguna taageersanahay ama isku wada raacsanahay waanu ka soo horjeednaa wada hadallada sida halka ku cad oo Cali iyo kooxdiisu ay wadaan oo ay leeyihiin waxaan la galaynaa Somaliland annagoo odayaasha dhaqanka Khaatumo ah arrintaas waa ka soo horjeednaa mana ogolin mana ku raacsanin waxa kale oo aan aad ugu faraxsanayn halka ka sheego anigoo ka faa'iideysanaya saxaafadda iyo munaasabaddan inaanu ku guuleysanay haddaanu nimi xamar inaanu midayno dadweynaha reer Khaatumo oo degan Muqdisho hadday xildhibaano yihiin hadday waxgarad kale yihiin hadday isime yihiin hadday madaxweyne ku-xigeenkii yihiin iyo kii hore dhammaan waxaanu ku guuleysanay inaanu meel ka soo wada jeesano oo aanu ka shaqeyno danaha iyo mustaqbalka ummadaas waaba bariyay haddaanu nahay maamulkii Khaatumo golayaashiisa xubno ka mid ah anoo madaxweyne ku-xigeenkii ah golaha istimada ee maamul Khaatumo xildhibaanada federaalka ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn golaha guurtida G10 ama G11 horeyna loogu aqoon jiray oo ku sugan magaalada tan xamar ee caasimadda Soomaaliyeed bayaan ka soo baxay maanta waxaanu isla qaadanay in aanu cadeyno inaanan ka mid ahaan doonin haddaanu nahay dad ka soo jeeda Sool Sanaag iyo Cayn waxa shirarka lagu sheegay wada hadalka lagu sheegay ka socda maxaan ku leeyahay gooni goosatada gobolada waqooyi ma qaadanayno ma qaadan doono ma yeeli doono cidina qoor qabasho biyo nagu cabsiinayso waanu diidnay waxaanu nahay Soomaali kama go'ayno Soomaali mana ogolaan doono iyaga laftigoodu inay ka go'aan annaga mas'uuliyadeedu na saaran tahay horeyna noo saarnay haddana saaranta Soomaali ma kala go'ayso annaguna waxaanu aragnaa sumalxad baanu aragnaa waa sumalxad ma aha talo reer Khaatumo ma aha talo Soomaaliyeed ma aha talo islaam in dadka Soomaaliyeed dadka islaamka la kala qoqobo waa wax aan banaanayn mid aanu yeeli doono ama aan qaadanayna ma aha warkaasi waa cad yahay dadka reer Khaatumo ee walaahowga la galiyay ee la marin habaabiyay ee looga dhigay maxaan ku raada in ay sharci tahay in Cali Waraabana nala shiro kuwii ugu mudnaana lagu eedayo la yiraahdo ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn hadday isma ahaayeen iyo hadday waxgarad kale ahaayeenba la leeyahay kuwa hadii halkaas waa dambiilayaal war sharciga fasaxay in Cali Waraabe iyo kuwa macooda ah in maxaan ku raahdaa loo maxaan ku raahdaa taladii iyo dantii
dadkan sool sanaag iyo cayn marba guri hoostii lala galo xaajadaasi xaajo qabata maaha xaajo aanu qaadanayna maaha xaajo aanu geynana maaha dadka reer khaatumana midnimo iyo wixii aad noo dirsateen inaad nagu garab istaagtaan baanu idinka fadhinaa oo midnimo ah oo midnimo ah oo midnimo ah oo mustaqbalkiina iyo noloshiina ah taasaan u taagannahay taasaan u taagnaan doonnaa isimaduna noogu go'aamiyeen oo maxaan ku rahday noogu duceeyeen naguna mideeyeen aanuna ku midaysannahay salaanka bacdi halkan waxaanu isugu nimi shir beelweynta reer khaatumo oo ay hoggaaminayaan isimada khaatumo oo ay ka mid yihiin xildhibaanada federaalka ee khaatumo oo ay ka mid yihiin xildhibaanada khaatumo golaha khaatumo oo ay ka mid yihiin rag kale oo badan oo ningarbooda oo halka kan xamar deggan waxaanu isla eegnay sidii marxaladdan lagu jiro oo jahwareerka keentay oo ninkii madaxweynaha u ahaa khaatumo doctor cali khaliif galaydh uu ku tagrifalay xilkii lagu aaminay uu la hoos galay howlo aan loo diran oo isaga u gaara iyo dad laga yaabo inay isagu wada faqeen waxaanu halkan ka caddaynaynaa oo aanu isku waafaqnay inaananu nin naga mida oo waxgarada iyo shacbi weyne iyo rag iyo dumar iyo dhallinyaro aananu waafaqsanayn waanuna takooraynaa waxa uu wado ninkii odayga ahaa ee madaxda aanu ka dhigannay aanuna ku tala jirno sidii aanu arrintaas uga hortegi lahayn waxna uga beddeli lahayn talana isugu soo noqon lahayn waxaanuna ilaahay ka rajaynaynaa dadweynaha shacabka khaatumo iyo soomaali idilkeed inay arrintaa nagu taageeraan